waatahay dhegeystayaal halkani waa idaacadda hirsamo oo idinka baaqayso isla barteena hirsamo tube media iyo dhammaan baraha bulshada aad kala socon kartaan. dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee xog bixiye oo aad nooga barateen inaynu idiin soo gudbino waxyaabo kala duwan isla markaana ku salaysan hadalhaynta dadweynaha iyo in aynu ka sii sheekeyno taariikho kala duwan oo ay Soomaalidu soo martay, balse maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa arintii ugu hadalhaynta badneed isbuucani ee baraha bulshada, iyadoo aan idinka raaligelinayno inaynu idiin soo gudbin weynay qaybtii kale ee aad naga sugaysay ee ka sheekeynaysay taariikhda dadyowgii hore ee Soomaalida. sidaas darteedana waxaan soo qaadan doonaa qodob aad u xiiso badan oo isla markaana hadalhayntiisa baraha bulshada ku badnayd. haddaba qodobkan oo noqday isbuucani qodobka looga hadalhaynta badan yahay guud ahaan baraha bulshada dadka isticmaala ee ka mid ah YouTube-ka iyo meelaha kale ee Facebook-ka. haddaba waxaan soo qaadan doonaa saameyn ka dhalatay arinta wadaadkii hadda ka hor lagu sheegay inuu sameeyey falal lid ku ah diinteena islaamka oo laga soo warinayo inuu sii wado arrimo kale oo khatar ku horseedi karto ummadda islaamka ee ku dhaqan dalkeena Soomaaliya. sida ay u kurgaleen bahda hirsamo tube ayaa arintan hadalhaynta badan dhalisay ee marba mar ka sii dambayso lagu sii arkay magaalada Gaalkacyo, waana wadaad hadda ka hor lagu arkay waxyaabo tusinaya diinka bax. haddana waxaa lagu soo waramayaa inuu sii wado arrimo kale oo halis weyn noqon karta haddaanan hadda wax laga qaban. dadkan oo lagu magacaabo Cabdiweli Cali Cilmi oo muddo ku dhawaad sanad laga joogo lagu sheegay inuu soo bandhigay sawir uu kala jeeday suubaneena Maxamed salawaatullaahi calayhi wasalaam uu ku soo bandhigay magaalada Gaalkacyo, waxaana dhacday markii arintaasi lagu arkay in la xiray muddo yar kadibna laga sii daayay sida aan ka xiganayno. waxyaalaha hadda wadanka lala marmarayo akhyaaray waxa fiican qofku hadduu yimaado halkaas markii maxkamadii fiirisay iyo su'aalaad kale ay sii weydiisay ninkaas xukunka ay ka gaartay maxkamaddu way gaartay ka sheekha firii bay ka dhigtay culamadii meeshii joogtana sidii bay iyaguna xukunka ugu raacay. haddaad hore u ogeedeen nin qof siideysmadiisii kadib waxaa dhacday in wadaadkan uu sii waday arintiisii dambiga badnayd. haddana waxaa la sheegayay inuuba goobta uu deganaa uu ka dhistay guri uu ugu yeedhay bayturasuul, sida aan ka xiganayno mid ka mid a mashaayikhda caanka ah. ku magacaabay markuu dhisayay bayturasuul, beytkii rasuulkaan dhisaya markaasaa dad cawaam ah oo nebi maxamed ba aan bayt inuu leeyahay usan lahayn ba adduunka waxba ogeyn ayaa yidhi bayturasuul aan ka qayb qaadano. markaasaa waxaa loogu deeqay dhagaxa dejintiisa, lacagta la bixinayo, shaqaalaha shaqaynaya, fuundiyaalka ayaa loogu deeqay, xarun ayuu markaasuu wuxuu ku magacaabay bayturasuul. nasre iyo durbaan buu ka bilaabay, makarafoonna waaweyn buu ku xirtay, xaafadihii dariska ahaa dadkii deganaa waa ka guureen. habeenkaas oo dhan buu ku dhawaaqay. kaadka u yimaada oo Nairobi uga yimaada waa firi. qaybta kaadka u soo baxda asaga loo soo qaado dadka yaqaanaa waxay noo sheegeen in loogu soo qoro siyaaradii Sheekh Cabdiweli Sheekh Cali Cilmi Yare ayaa loogu soo qoraa. markaasaa diyaaradda marka laga soo dejiyo jawaanadiisa gooni baa loo dhigaa. subxaanallah, arrimaha la yaabka leh ee ninkan laga soo sheegayay ayaaba waxayba gaadhay inuu yidhaahdo gacmaha, lugaha iyo garbaha laga ciyaaro, sida hirsamo tube ay ka xiganayso mar kale mashaayikhda caanka ah ee Soomaaliyeed. marka saaka la jecel ay ka qabatay hadda 3 juzba وعربكي يقعنيه يصدح يلوهبه
كل جن مركز قف سموت جاهية الزاد صار من نقطة معناها ذاكر ساسنا معناها آيات شيء ومعمورة كو تسواقيب معناها وسيدنا هذا ساكا أنا مرة بصدق عربك يقعنها يلقاها قفا اسكسي ذاكر واحد ها لا بحنا وحسبه هذا لوي ساس ترى وقعني ساس ترى عربك ليه ساس ترى هو أيد ما لك بينس أنت كلام ما بينس عربك ما فرمس لا ما فرمس سيدنا ساكا أثارتين بعد ضروري تاخذ بالحد يا حسبي وكاشف فكرتي في الحال وحسبي بسم الله يا مصطفى بالله يا رسول الله اتوردني ma aha halkani wax lagu soo koobi karo fidnada oo ninkaasi deegaanadaasi ka wado waxaase nasiib darro ah in maanta dadku uu duufsaday xirtiisa ku biiray ay boqol kar u dhaafayaan sidoo kale waxaa jiray warar kale oo tilmaamayay inuusan tukan wadaadkan xitaa uu yiri in loo tukado salaada sidoo kale dhalinyaradii kale ee tukanaysayna wuxuu ku buuriyay inuu asaga u tugto sida mar kale aan ka qeyrino Sheekh Shabile oo ah mid ka mid ah mashaayikhda caanka ma tukado macruuf weeye kuwii la joogay oo ayagu iskood u tukanahayay oo markii dambe iska daayay baan weydiinay markaas ay ilaahay sheekheena iska daayay maxaa yeelay wuxuu yiri aniga nabiga ii tukada idinkana ana idin tukada iska daayay yaqiintii baan gaar ma tukado waa salaad la'aan waa fuxshi iyo daroogo waa ginaagaas iyo muusiga la tumayo وصب الأنبياء الله عينيه وأركتين آياتها القرآن كمركو كوهيسة هيو انتو صوكا حيث كوحدا أو فريقا إنو كوهيسة هي آياته القرآن كا ومركو مرها يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا إن الدنكنا هي صور كايسة وارك تلاعب كهير كاسجاري إيا كفر كهير يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا على محمد dhammaadkii sanadkii 2016 haddaba arrimahan oo kale oo waliba dalka gudihiisa ka socoto iyadoo nin sheeganaya awood aanan qof islaam ahi sheegan karin maxaa looga baahan yahay in laga qabto wadaadkan si luminaya barbaarta yaryar iyo haweenka waliba uu leeyahay in loo niikiyo taana waxaa ka darnayd in waliba uu qasiido ka dhigay misna uu dhiibay wiilal yaryar ayagoo leh isla markaana ku heesiya gabdhihii niikinayay nabigooda amaane subxaanallah arrintan ayaa waxaa siyaabo kala duwan kaga hadlay culimo u diinka Soomaaliyeed waxayna kaga digeen inuu sii wado fitanka uu ka dhex wado shacabka isla markaana la xiro inta asaga raacsanna dhaqan toosin loo sameeyo culimada gaalkacyo joogta iyo agagaarkeeda Ilaahay ka cabsada maamulka joogo Ilaahay ka cabsada cuqaasha joogto Ilaahay ka cabsada waxgaradka iyo ganacsatada joogto Ilaahay ka cabsada kuwa maal galiyo Ilaahay ka cabsada kuwa ilmaha dhalayo Ilaahay ka cabsada wadaadkaas fidna ka soo soco ilaa maalinku wadaadka kala ku tilmaamay inuu Xabiibullah Muhammad yahay ilaa maanta marba tilaabada ka dambeeyo soo qaadaya ahlu baadilka hadaan laga hortagin inay ahlu xaq yihiin isu fahmaan markaas ay ku soconayaan ilmihiina fidna ku socod oo magaaladaas fidna ku socod oo deegaanka fidna ku socod Ilaahay ka cabsado waxaas ka hortaga hadaa ka hortagi doontaana diidana waa ka shalay doontaan ayagoo
wadaadkan oo ku dhaqan magaalada gaalkacyo ayaa noqotay sheekadiisa midda ugu hadalhaynta badan baraha bulshada, waxaana loo baahan yahay in wax laga qabto sida aad ku maqlayseen khudbadaha culamaa udiinka ay ka jeedinayeen waxyaabaha uu ku soo wado dalkeenna wadaadkan. waa tahay dhegeystayaal, waxaan isla soo gaarnay gun iyo gunaanadkii xoog bixiye oo aad kala socoteen idaacaddeenna Hirsamo. maantana waxaan idinkugu soo gudbinaynay qodobka hadalhaynta ugu badan dhaliyey ee maalmahani laysla dhex mariyey baraha bulshada. dabcan waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. waxaadna kala socoteen barnaamijkan islamarkaana aad ka heli kartaan raadiyo Hirsamo ama barteena YouTube-ka ee ah Hirsamo Top Media.